daawadayaasha sharafta leh meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Production oo aad alaaba ka daawataan warbixino xasaasi ah oo xaqiiqo ah la isku halayn karo fadlan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad soo booqatid Brothers waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa daawada inaad subscribe saartid gambaleelkana furatid si aad uga mid noqotid daawadayaashayada helo xogta xaqiiqada ah ee aan 24 saac halkan soo galino barnaamijkeena ayaan ku eegaynaa xaaladii ugu dambeysay ee ku sugan yahay fanaanka Soomaaliyeed ee gacanta cadawga ku jira Khadar Ibrahim Khadar Keyow warar soo baxaya ayaa sheegaya in fanaanka Khadar Ibrahim Keyow loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee magaalada Addis Ababa wararka aan ka helayno xariga fanaanka waxay intaas ku darayaan in lagu xukumay xabsi 10 sano oo xarig ah safiirka Itoobiya u fadhiyo Soomaaliya ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camay ayaa wax warbixin ah ka soo saareen xariga fanaanka Soomaaliyeed xariga fanaanka Soomaaliyeed ayaa yimid kadib markii lagu helay kiis waraaqa bug ah iyo wax isdabamarin shuruucda duulista garoomada Itoobiya uu jabiyay kooxda immigration-ka ayaa baaris dheer kadib ogaatay in waraaqa Khadar Keyow ay yihiin kuwa bug ah ama khalad ah dhacdadan ayaa ka dhigaysa in ummadda Soomaaliyeed u midowdo oo ay barnaamijyo caalami ah sameeyaan si loo soo daayo fanaanka Soomaaliyeed ee da'yarka ah waxa xusid mudan in muddo ku dhow bil uu ku xirnaa dalka Itoobiya aanan la soo taagan wax maxkamad ah dawladda Soomaaliyana aysan ka hadlin arrintaasi sidoo kale wali lama shaacin waqtiga rasmiga ah ee la soo taagi doono balse ilo ku dhow ayaa sheegaya in dawladdu qorsheynayso in lagu maxkamadeynayo Khadar Ibrahim Khadar Keyow magaalada Addis Ababa dhacdadan ugubka ah ayay dhacday kadib fanaanku markii uu damcay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay arintani ka dhigaysaa inay u midoobaan si loo soo daayo fanaankan da'yarta ah ee lagu haysto xaq darrada fadlan u duceeyo Soomaali Maxamed meel walba oo joogtaan fanaankaas dhalinyarada ah in Rabbi xabsiga cadawga ka soo daayo mahadsanidin ha ilmaamina daawadayaal subscribe gambaleelkana furta si aad uga mid noqotaan daawadayaashayada halkaan aan u soo galino warbixinada ku mahadsanidin